وحمانت مقالة بورما حرونتا قبل كاودا سو غادhay isla markaasina nagu soo dhaweeyay oday dhaqmeedka Waqooyiga Hargaysa iyagoona soo dhaweyntaasi u sameeyay odayaasha dhaqanka ee dhigooda ee gobolka Awdal odayaashan oo dhaqanka ee ka socday Waqooyiga magaalada Hargaysa oo lagu soo galbiyay gaadiid ayaa ugu dambeyntii kulan qada sharaf ah oo yeesheen odayaasha dhigooga iyagu martiqaadkan u fidiyay ayaa hadhiman sharafeed ku kulmay iyagoo halkaasina isku xog wareystay waxana halkaasi ka hadlay xubno kamid ah hoggaanka dhaqanka ee ka kala socday Waqooyiga Hargaysa iyo gobolka Awdal waxna yiraahdeen waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa waftiga inooga yimiday beelweynta Subeer Awal ee uu hogaaminayo Sultan Xasan oo sultaankii guud ee Subeer Awali uu hogaaminayo waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya afka beelaha Jibriil Yoonis waxaan leeyahay ku soo dhawow sultan gacmo furan ku soo dhawow adiga iyo waftigaagu qalbi furan waxaan leenahay soo dhawaadaan leenahay iyo walaalnimo iyo jaarnimo iyo is wada dhalasho ku soo dhawaadaan leenahay beesha Subeer Awal waftiga nooga yimiday aniga oo ku hadlaya afkii Jibriil Yoonis inta kadib fadhigu wuu inoo dambeeyaa oo waan fadhiisanaynaa laakiin kelmadii soo dhaweynta iyaan halkan ka dhiibayaa waxaanu aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waftigan culus ee aan maanta kaga soo kicitinay caasimadda Hargaysa waxa uu daaran yahay arrin martiqaad guud oo kow Jibriil Yoonis ah waxaanu halkan markaa ka mahad celinayaa sidii diiranayda ay walaalaha iyo Jibriil Yoonis noogu soo dhaweeyeen sidii ballaadhaydeena loogu soo dhaweeyay ee madax dhaqameedka kale xataa noogu soo dhaweeyeen shirar ballaadhan baynu gali doonaa maanta Jibriil Yoonis baa ugu horeeya insha Allah bidmillaahi kariim dhammaan beelweynta Samaroon oo dhan oo walaalahaya oo yacni maanta wadnahayagiya oo aanu yacni wax wada leenahay oo di ab ka dhow baa la yidhi waxa aanu insha Allah bidmillaahi kariim dhammaan beelaha kada birsi oo dhan waanu insha Allah waanu la fadhiisanaynaa jilbahaanu dhigaynaa waxaan u mahad celinaynaa madax dhaqameedka maanta na soo dhaweeyay wax garadka na soo dhaweeyay salaadiinta cuqaasha oday xaaji shabakada caalamiga ee News magaalada Borama